soo baxday soo dhaweynta hogaamiyaha iyo dareenka ay ka qabaan wadankoodu in macnaheey maartay ay diyaar u yihiin inaysan ogolaanin in dib dhac uu ku dhaco runtii waan ka xumahay inaad qoraxda joogtaan annaguna maartay aan marba isu bedelayno laakiin dhammaanteen damiirka ayaa meeshan wada keenay insha Allah dulqaadkana waan kaga mahad celinaynaa mar kale waxaan leenahay wadanku wuxuu ku socdaa in la soo galo heshiisyo aan la ogeyn waxa lagu soo heshiiyey oo wadankan siyaasadiisa inaan ka wada shaqeynaan diyaar u nahay ma ogolin caburin iyo muxuu ahaaye laba luuq soo gasho oo maartay muxuu ahaaye hadalla aan la ogeyn meel maartay ku soo qorta ma ogolin insha Allah taala waan hor taagana hadaan ilaado waxaan leenahay heshiisyada laga soo galay Itoobiya ila Tariya ma ahan mid waafaqa oo maartay Soomaaliya hadda macnihi ay waafaqan karta ma ahan Eritrea iyo Itoobiya labaduba dadkooda way u sheegeen waxay yiraahdaan Soomaaliya idin soo wadnaa inaad ka shaqaysataan oo aan gacanta idin soo galino laakiin hogaamiyaashana noomay oo boqso yar la yimid inuu wadanka gacanta ka saaro ma ogolaanin insha Allah taala waxaan leenahay mar kale insha Allah taala aan wada socono biidhnillah taala